dowladda federaalka ee Soomaaliya aragtidaada raadka eedeyntan madaxweynuhu ma ka muuqdaa Somaliland bismillah aad baad u mahadsantahay waan runtii horta marnaba may dhicin in laga aqbalo magaalada Muqdisho la yiraahdo loogu duceeyo go'aanka ay qaadatay ah in doonaysan goonisu taagto inta wixii ka dambeeyay eedeymuhu way socon marba si haw jiraan waxa jiray xilliyo laakiin si Muqdisho aan ka jirin dawlad xoog leh oo Somaliland ay wada tirsan karaan ama la hadli karaan kulli waxa jira sawir guud oo laga fahamsan yahay Hargeysa intii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka ahaa Muqdisho ama Soomaaliya madaxweynaha ka ahaa in ay korodhay ama ay korodhay maxaa la yiraahdaa kulli hadallada xanafta leh u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya waad aragto eedan madaxweynuhu uu soo celceliyay de mid uu xaaladda siyaasadeed ka jirta deegaanka uu ku moosayay kula tahay mise way jirtaa eedu oo guduhuna way ka muuqataa marka Somaliland aan ka hadlayno gudaheeda horta qodobadu taabtay qaar ka mid waxbay ahayn aan la qarin karin oo jiray la qaaday Soomaaliya tooso si ay ku jirto xamaasadii baa runtii markii loo diiday waxaana la sheegay heshiiskaasi inaan ahayn mid suuragal ama waa heshiis aan sharci ahayn baa lagu dhawaaqay kaas markaa wuxuu ahaa wax jira oo cad oo aan qarsoodi ahayn waxaana la filayay in si hadiiba xitaa waxa la isku khilaafsiyo hoos looga wada hadlo kaas midda kale waxa jira hawada dawladda Somaliland iyo Soomaaliya ay dhowr jeer wada hadal ka galeen ayna soo baxeen maxaa la yiraahdaa heshiisyo odhanaya in la wada maamulo tii markii dambe aanay hirgelin iyo dhowr jeer oo dambe warqada ay soo baxeen mid kale sanduuqa dhaqaalaha waxa weeyaan markay bulshada caalamka ama qolyahan deeq bixin tiraahdo de ma jira waxa naloo soo marinaya iyo waxa iyagu ogolaan doonaan toona sababta waxaana dawlad madax bannaan marka laakiin si eedeynta xoogga leh ee runtii imika soo noqota waxay la kowsatay maxaa la yiraahdaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka waxoogaa xiriira Somaliland markasta waa inay dawladda federaalku wax ka jaangoysaa Somaliland iyagu taa ay diidan yihiin arrinka sidaas way jirtaa aad way jirtaa way dabcan arrinka tukarraq iyo waa iska sheeko kale oo aad leedahay laga yaabo inay mararka qaar xaaladda saxda ay saqusayn way waxaad ogtahay in xiisadii ay ka dheximka arrintuna ay ka timid guddiga xubnaha loo magacaabayo guddiga doorashooyinka ee ka imaanaya xisbiyada khilaafkuna waad ogtahay meesha uu gaaray golihii aqalka hoosena baarlamaanku ay meel mariyeen xubintii doodda ay ka taagneed ee xisbiga kulmiye saameyn caynkee ayaa arrintaa ka dhalan kartay kula tahay in arrintu salka ku hayso in ummadda guud ahaan ummadda af Soomaaliya ku hadasha ay qaadatay system aanay ama hab aanay imika u diyaar ahayn waxaan isla haysanin habkaynu qaadanay in la isdoorto in doorashadu ku dhacdo waqti go'an in maxaa la yiraahdaa golayaasha lagu soo doorto xilli go'an oo imika Somaliland oo kale ay 5 sanadood Soomaalida inta af Soomaaliya ku waxa loogu yar qaatay kilinka shanaad ama gobolka Soomaaliya digtay Ethiopia oo hadda degan markii ay dawladdu isbedeshay marka waxaad moodaa weli waxaan isla jaan qaadin waxaynu doonaynay inuu afka kan aynu warqadaha ku qoranay iyo ficilkeena isla jaan qaadin horta basi dhibaato ka taagan tahay xagga marka loo soo noqdo adkayd inay aqbalaan guddidii hore ee ku dhawaaqday inuu wadani dhacay oo ay tirsanayeen ama runa noqotaa been noqotay leeyihiin يعني أنا أورام بدعي إن أنا كبوري سكرسي كمدحوين المدة ويواركي إن مكاس وين نجاي حدين ماشي نسيت شو عن مرة حسب كل مية مدحوين أنا وحقوات كين تاسوحي كنت بركة شيء تفرع بدن مرور بنا واحد ماشي كم غريب يسوي تناسل إياه محل هذا يعني لو فريست الله يسلاه وده وحلا يسوي لويشيو waxay imika la soo gaadhay marka aakhir keen waqtigii dhamaaday guddiga hore doorashooyinku ama commission halkan laga yiraahdo kamida sariir jecel Ingiriis laakiin guddida doorashooyinku waqtigeedii uu dhamaaday tagan tahay inta ka ogahay ni waxa weeyaan waa nin kale yiraahdo Cabdirashiid Riyaraa midna waa inanta labadooduna way kala yara duweysaan warko waxa tusaale Cabdirashiid Riyaraa waxa lagu eedeynaya ay ku eedeynayaan qoliyaha mucaaradka ah in uu yahay nin xisbiyahana wasiir rasool qodobkiisa 12aad faqradiisa 5aad ayaa waxay leedahay waa inuu yahay qof dhexdhexaad oo aan xisbi ku jirin kuna xisbina ku jirin mid aan xubinna ka ahayn isla markaana aan active ka ahayn xubin marka taas waxay keenaysaa in mar horena horta taariikh baa soo martay Somaliland oo xisbiga kulmiye ku dhacday gabadh loo jeeyo Ilhaan Maxamed Janaac bay u diiday isagoo ku eedeeyay inay gabadhaas tahay
gabadh xubin firfircoon oo xisbiga marka arrinta xisbiga kulmiye marka ahay marka imika waxa muhiim ah in la isla qeexo la isla eego ma xubin firfircoon oo jirtaba mise ma aha taas waa mid qodobka labaad runtii fiicnaan lahaa ee anigu qoladayna saxaafadana kula talin lahaa waxa weeyaan reer Soomaaliya qiyaasi karaan waan xagebi wax ka jiraan laakiin marba mid khudbadeeyada waa laakiin haddii Cabdiraxmaan hadiiba baarlamaanku meel mariyay hadda soo ma dhigi karno waa sharci oo meel dambe wixii looga laabtaa ma jiraan waxa jira halkaas waa hadal wanaagsan waxa jira culimada waxay isticmaalaan kelmadda ilaahay marka waa hadal xaq ah oo baadi loola jeedo baa la oran karaa sababtu waxa weeye su-aashu waxay dib ugu noqonaysaa maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdo kalsoonida ka dhaxaysa maxaa la yidhahdaa haykalka dawladnimo ama kalsoonida ka dhaxaysa shacabka iyo dawladda taasay dib ugu noqonaysaayo waxa jirto marar badan bay ka dhacday waa xilli ay ummadda Soomaaliyeed marayso oo waxa taagan waxa warwar laga qabaa baarlamanku sidan uu sameeyay cadaalad ma tahay mise waa baarlaman oo wixii dawladdu tiraahdo raaca wata su-aashu halka ka taagan marka haddii ay qolyaha mucaaradka ay dadka qaar ku tuumayaan baarlamanku dee dawladdu bay teeda furiyaan ma aha saddexda xisbiga golaha way ku jiraan golaha wakiilada way ku jiraan maxay qolada xisbiga wadani iyo wixii ay u diidi waayeen oo odhan waayeen aqbali mayno taas waxa haddana yar meesha taala intee in leeg bay ummadda Soomaaliyeed diyaar u tahay ama ay u tahay daacad u tahay xisbiyada loyalty waxaan idhaahdaa inay xisbi diyaar inay marka meeshu wax sharci oo jebinay inagu ma jiraan haddii ay jiraan diyaar aan u nahay qodobadii ay ku heshiiyeen xisbiyaduna way yaalaan markaad eegto adiga sida madaxweynuhu u wajahay ma tahay sidii saxda ahayd qodobada iyo waxyaabaha uu cuskadana ma yihiin kuwa madaxweynuhu uu runta ka abaaray horta si kale haddii loo dhigo la eego la yidhaahdo maxaa leedahay shuruucda la isla raadsanayo haddii dee sax iyo khaladkiina anuu kama jawaabi karo imika kama jawaabi karo inuu kale anuu qodob un baan hubaa inuu ku jiro maxaa leedaha xeerka maxaa leedaha guddiga doorashada ama commissionka oo ah saan sheegay faqradda 12aad qodobka 12aad faqraddiisa 5aad inuu sheegayo qof active oo xisbi ka tirsan aan ahayn taas horta wax jira laakiinse de waxaan mar haddii si kalaba loo dhigo la yidhahdo madaxweyne mas-uuliyadda koowaad ee dalka isaga haya xisbiyada mucaaradka inta u dhigantay ku xigta bay leeyihiin haddii la isla eego labada qof ila cirkii dhulku qarxi maayaan haddii la yidhahdo labada qof saynu ka yeelaa miyaynu bedelaa ilima ku xigta dhow la soo dhameeyey tan gudheedu waxaad moodaa weli la keenay waxa la yidhahdo isu tanaasul iyo xal iyo walaal waxaynu yeelaa haddii ay dhinacyadu ku adkaystaan sidan madaxweynuhuna wuxuu yidhi wax sharci ma aana jabin xisbiyaduna waxay leeyihiin sharci maaha golihiina baarlamaanka waa ansixiyey haddii ay xaaladdu sidan sii ahaato maxaa dhici kara cabdiraxmaan horta waxaa dhici kara dhowr arrimood baa dhici kara baarlamaanka imika muddada aadka u faraha badan leh muddo dhaafka faraha badan ku fadhiyey loo kordhiyo oo halka qolada guurtiduna badanaa korrinta kama walaacaan aad bay ugu fiican yihiin xagga korrinta la yidhahdo in iyaguna soo inta laga dalbado ay soo bandhigaan korrin waxaa dhici karta inay maxaa leedahay horta kolleyta ugu weyn ay dhici karta dambeyntii dhibaatooyinka muddooyinkan kusoo siyaaday Somaliland waxaa ka mid ah jabhadahan abuurmaya oo ilaa iyo labo ay deegaanada Somaliland ka abuurmay kuwaasi oo saameyntooda iyo culeysyadooda laga dareemay gudaha Somaliland maxay tahay horta runtii waa runtaa jabhadaas way jiraan laba jabhadood baa dhawaanahan cusbaayo mid jabhadu hogaaminayay la yidhahdo caare iyo jabhad berdhaweyto ka bilaabantay cawaale la baxdo ka bilaabantay deegaanka dila adigu boorame boohday ka jirtay mar iyaga ku dhadhexta Soomaaliland ee ku dhadhay kala jabto liistiro si 8 ahayd marxalado badan bay soo martay laakiin waxaad moodaa mar kasta in marxalad laga gudbayo aan waxa marnaa jabhadahaasu waxay ku salaysan yihiin laba arrimood wax la yiraahdo tabasho inay cidi wax tabato sax ma cid ku soo dhacday inay wax ka maqan yihiin kow iyo marxalad ahaan bulsho ahaan bay inagoo marayna heerkaasun weli xabadii iyo qoriga aynaan dhigin aynu weli u haysano inay xabaddu ka fududahay wada hadalka laakiin had iyo jeer jabhadaha waxaan saacidaynin oo aada uga hor yimaada imika waxaad moodaana dawlad baa jirtay xoog badan dawlad bay ahayd keligitarisa dawladaan saxaafadii waxba ogolayn dawladaan wada hadalka ku fiicnayn marka qofku inuu qori qaatay waxa qura lagu nafiso laakiin imika waxaynu haysanaa in la wada hadli karo in telefishinada lasoo fadhiisan karo in raadiyaasha laga wada ku dhafanay dhaqanka ah ee dhaqan iyo dawlad marka la iskaashadee la wada hadlaynay ayaa hor istaagay jabhadaha mid waa la dhameeyey inta imika ka ogahay jabhada dhinaca galbeedka dhinacan gobolka awdal way soo dhamaatay hadda
wadahadal baa laga gaadhay safgarad ta kale wadahadalkeeda wayna bilaabay ayaa qayb ku leh arrintan oo beelihii iyo dadkii Somaliland aan weli sidii loo baahnaa isugu hayn madaxweyne Muuse Bixina la doortay doorashadaas runtii waxay ka tagtay xaraf badan iyo maxaa la yiraahdaa iyo isqabqabsi iyo murab may ka tagtay waxay markaa kaloo yara ka tagtay in maxaa la yiraahdaa dad badan ay isdhahdaan weliba xagga maartay awoodda ma u malaynaayo xagga awoodda in Israa'iil waxba idinka maqan taas markaa mas'uuliyaddeeda leedahay madaxweynaha oo kaliya lagu eedayn karo waa in laga wada hadlo laga la isweydiiyay cabdiraxmaan jaamac ismaaciil jamaal oo aqoon-yahan ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo qadka Skype-ka ee Hargeysa igu waramayay ayuu kaasi ahaa mas-uuliyiinta gobolka Banaadir oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka ayaa tagay Daynile maanta halkaasi oo lagu soo bandhigay 2 dhalinyaro oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo xalay lagu qabtay dagaal ka dhacay degmada Daynile dagaalkaasi ayaa labada dhalinyaro mid kamid ah ayaa dhaawac ah iyadoona ciidamada dawladdu ay gacanta ku soo dhigeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenadiisa ayaa tagay degmada miyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلبت وحان isugu nimiday meesha xal dhibku ka dhacay oo ay soo weerareen nimankii dhaqan qabayaasha ahay oo shabaab dhibaato badan ay ku adiga 4 saac ay soo weerareen bar ciidan oo ku taala duleedka degmada Daynile oo la yiraahdo Saqayro markii ay soo weerareen ciidamadu waa iska caabiyeen ciidamada gurmudka u yimid ayaga waa ka weyn oo yimaadaan tan kale dhalinyarada xal xaggan joogtay amaantoodii waxba ka dhinaayeen dagaalkii xalay soo halka fadhiya sidoo inay carqalad ka geystaan degmadooda amniga iyo ayagu ay isweydaarsan waa nasiib darrada Soomaaliyeed waxyaabaha kaasi ahaa isagoo ka hadlayay golaha ammaanka ee qaramada joogtada ah ee golaha waxa intii saarneed 3 dal radaha u soo gudbiyeen mar kale ay hadaba guud ahaan arrintan ayaan eegi doonaa waxa qadka telefoonka ee Mareykanka ku jira oo dheeraad ah loogu daray cunaqabataynta su'aal fiican weeyaan taasi cunaqabataynta hubka sanadkii kurii daraa oo loo baahay shacabka Soomaaliyeed inay dawladda Soomaaliyeed ayna soo madaxweynaha Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed cabinet cunaqabataynta sii socoto waxa iska leh security council sababtoo ah waxa loo baahay shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan sababta arrinta loo suuqay iyo jiritaanka adduunka wardal faqri oo miskiin ah waxba haysan oo asoo islaayay dawlad tayare oo macna leh oo runtii ka waxa qaranimada daafaca la yahay way qaranimada markii kaloo loo kulunay ambassador marka maxay ogeyd xoog walaha halhaan jiray inta ciidan ajnabi ah dalka uu joogo mar dawlad xor ah hadaan nahay waxaan xaq nimanka dawladda sheeganaya xaq ku jooga jiritaanka iyo xorriyadda ummadda Soomaaliyeed way in inta la dhowrto oo markaas waxa mas'uul ka ah dawladda Soomaaliyeed way iyo madaxdeeda way ambassador dawladdu kama aanay qabanin marka anigu ma qabo wax ka muhiimsan way waa fiican waa muhiim in laga daayo Soomaaliya deynta lagu leeyahay laakiin waxa Soomaaliya waxa weeye dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin ah oo wadaniyiin ah oo waxba iska bedelin waxa keenay waxa weeye tayaxumada codna uusan uga furnayn maxay tahay wax ay ka qaban karaan asleeda waxay ka qaban karaan soo socda 60 sano noqonaysa in ayna ku mashquulin inay iyagu isqabsadaan iyo gobolada la diraan waa inay ku mashquulaan in ciidan Soomaaliyeed oo wax ku oolaa xorriyadda Soomaaliyeed ka sheeganaya mas'uuliyadda tiri ma shaki ayaa kaaga jira doorta ما هو على صوته وهالرمل لأن ما دي ده إني مش لكن هنا كشجع محي تريتها فعل بالعربة أول كوين قاعدين على الدران ومش أول كوين شعبي مرجع كشجع واي وقدام بنتي وأنت واحد كده على وكده عليه إلا كوميو واي أو دبعت له markaad eegto guud ahaan arrintan ma is leedahay Soomaaliya mar kale fursad loo siiyo madaxweynuhu uu wareeyay iyo baarlamaanka sidoo xabar laga helo in gobolada laga diro waxa ka dhacay waa arkayso xagee lagu arkay nin madaxweynaha oo shacbigiisa ciidan ajnabi soo ijaaranayo oo la leeyahay waa maxay ka dhacay baydhabo xagee lagu shacbi Soomaaliyeed ka taagan Soomaaliya cunaqabatayn ciidanka Soomaaliya waa inuu oo laga joojiyaa oo laga wareeyo inay go'aamiyaan in Soomaaliya loo diido dhamaada qoriga taas laga banadaa mar dambana waxaa mas'uuliyadaas waxa iska leh
nimanka dowladda inay oo telefoonka Mareykanka igu waramayay ayuu kaasi nabadgeliyay